nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka muuminka ah ayuu wuxuu ka waramay arintiisu caynka ay tahay. wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiiska Suhayb ar-Rumi fi sahih Muslim ajaban li amri al-mu'min waxaan aad iyo aad ula cajabaya oo aad ula yaabsanahay oo aad ugu bogaya oo cajab geliyay qofka muuminka arrinkiisa. markaasuu nabigu faaleeyay arintu siday tahay inna amrahu kullahu lahu khayr. waxaan ula cajabayo muuminka arrintiisoo dhan baa khayr ah. arrinkiisoo dhani waa khayr. waa muuminkii miyirka qabaa laga hadlaya. arrinkiisoo dhan baa khayr ah. walaysa dalika liaxadin ila almu'min. tilmaanta caynkaasa qof aan mu'min ahayn ma leh buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. oo arrintu maxay tahay? in asaabathu saraa'u shakar. haddii barwaaqo iyo ladnaan iyo caafimaad ilaahay siiyo dad iyo dunyo iyo diinba alla dhaqaaleeyo dhaqo, waa kana mahadnaq buu halkan la fadhiya. salaadii waa dhammaystiraya, qur-aankii buu akhrinaya, sadaqadii buu la baxaya, ilaahay buu caabudaya, waa khayr buu ka shaqaynaya. ma malayn karaysa arrintiisu shakar fakaana khayran lah. khayr bay u tahay. wain asaabathu daraa'u hadday dhibaato ku dhacdo, musiibo la soo gudboonaato, sabar waa sabraya, fakaana khayran lah. khayr bay u tahay buu nabigu yuri salawaatu llahi wasalaamu calayh. sidaa awgeed sida caafimaad qabku uu nicmo u yahay ayaa xanuunkuna uu nicmo u yahay. marka waxaa laga helayo aada u fiirsato. sidaa awgeed baa xanuunku wuxuu ku dhacayaa qof yar iyo qof weyn, mid qani ah oo maalqabeen ah, mid faqiir ah, mid muslim ah, mid gaal ah, mid wanaagsan, mid xun. kulli xanuunku waa ku dhacaya. mid uu dhaafaya xanuunku ma jiro. xanuunkaasi waa imanaya, waa ku dhacaya. sidaa awgeed baa laakiin dadkaasi natiijada ka soo baxaysaa kala duwanaanaysa. qaarkood kala duwanaanaysa. in imtixaanku imanayana ilaahay qur-aanku inoogu sheegay fi suurati albaqara aayaadkaynu ku tukanayni walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir الsaabiriin. ilaahay waa dhaaranaya, wallaahi waa idin imtixaamaynaa, waa idin jarabaynaa, waa idin imtixaamaynaa. waxaanu idinku imtixaamaynaa gaajada wax ka mid a, cabsi wax ka mid a, baqdin iyo cabsi iyo colaad ayaanu idin gelinaynaa. markaasaanu eegaynaa xaalkiina. gaajaanu idinku imtixaamaynaa. waxaanu idinku imtixaamaynaa maalka oo aanu idinka nusqaaminno. xoolihii baa lagaa laynaya, geeli baa baxaya, oo adhigii baa xanuun u imanaya, waa baxaya, oo beertii baa xumaanaysa, oo markabkii baa degaya, oo daynkii baad waayeysaa, oo xoolihii baa khasaaraya. waa lagu fiilinaya. waxaan waa laguu dhiibay. adigoo qaawan ayaa uurka hooyadaa ka soo baxday, waxba aan hayn, xitaa magac maadan lahayn. kadib baa magac laguu bixiyey, kadib baa waxaan heshay, kadib bay waxaan isku hagaageen. axad baa waxaa maamulaya, qorshaynaya. waa lagaa qaaday adoo lagugu imtixaamaya. dadka kuwaad u jeclayd baa lagaa dilayaa. wiilashii, gabdhihii, xaaskii, waalidkii, walaalkii, saaxiibkii garabka ahaa, isha ku haysay baa lagaa dilayaa. ilaahay waa ku imtixaamaya subxaana wataala. bal inaad cabatid oo qaylisid iyo inaad sabirtid. midhihii iyo beertii kuu baxday baa lagaa halaagaya. wabashir الsaabiriin. kuwa intaa wax ka mid ah haddii la markiyo sabra, u bushaaree. waa kuwa loo bushaaraynayo aladiina idaa asaabathum musiiba. waa kuwa markay dhibaatadu ku dhacdo odhanaya qaaluu inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. micnaheedu yahay annaga ilaahay baa naleh, ka tegey ilaahay baa leh, dhintay. maalkan baxay ilaahay baa leh, qofka naga dhintay ilaahay baa leh, annaga ilaahay baa naleh. siduu doonu alle naga yeelaya. kaa tegey warkiiba daaya, annagii baaba u soconna xagga alle. addoon la leeyahay baa tahay. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. markaas alle wuxuu leeyahy subxaanah ulaa'ika calayhim salawaat min rabbihim wa raxma.
kuwa caynkaa sifadoodu tahay ilaahay wuxuu tilmaamay kuwaasi dushooda waxaa ah salawaat baa dushooda ah ammaan iyo naxariis ayaa dushooda ah waana wa ulaa'ika hum lmuhtaduun waana kuwa hanuunsan ba alla yidhi subxaana wa tacaala